Assalamu alaikum. This is what our this is waxa way laabkeeni labaad weyn kii hore wanigii waan recordiyey waana YouTube ku jira waxaan markaa hadda waxaan samayn doonaa exercise 1.3 and exercise 1.4 this is waa kii aan recordiyey our machine keeni marka waan casharkan waan sii wadaa marka waxaan doonaa kaa ku dhufo and then ku qol passwordkii aan samaynay oo ahaa maad garanaysaa and then markaad ku qortid waxa kuu furmi doona hadda screenkan marka waxaan samayn doonaa we configuring IP address for ayaan configureynaa insha Allah and then markaan kaa dhamayno waxaan samayn doonaa also waxaan samayn doonaa also install active directory and DNS ayaan samayn doonaa ka hadda screenkay noo weyneyn marka waxaan samayn doonaa markaan samaynayo waxaan tegi doonaa local waxaan ku dhufan doonaa local server markaan local server ku dhufto waxaan samayn doonaa waxaan ku dhufan doonaa waan isticmaali doonaa waxaan ku dhufan doonaa kan ethernet 0 IP version 4 kan kligaa marka waxaan ku double click baan siin doonaa double click ama right click and then waxaan odhan doonaa waxaan ku dhufan doonaa property ku dhufan doonaa and then waxaan tegi doonaa IP version 4 oo double click marka property odhan doonaa and then waxaan odhan doonaa use the following IP address waan inaga siin doonaa IP address kan siin doono waxaan siin doonaa 172 16 and 0 and 10 this is waxa way the main computer ka isticmaali doono weeyaan and this is the subnet mask and then default uma baahni bad waxaan odhan doonaa DNS baan ku qori doonaa oo same ka sare ah 172 and 16 and 0 and 10 and then markaad ku qortid waxaan odhan doonaa okay and then waxaan odhan doonaa close hadda hadda waan ku qoray IP address waan tijaabin doonaa ka halkan waxaan ku qoran doonaa intaan kaa doorto ayaa odhan doonaa CMD and markaan CMD dha and then waxaan ku oran doonaa command prompt and then waxaan odhan doonaa IP config to check IP con to check our IP address that we give them space and then calaamadda and all and then enter marka as you can see IP address false here and this is the one we are seeing haddaad arkaysid 172.16.0.10 and this is the subnet mask and this is the DNS our server it's here wakaas ka saasaan kagu dhameeyey marka hadda waxaan installan doonaa active directory markaan active directory aan sameynayo waxaan ku dhufan doonaa dish dashboard and waxaan odhan doonaa add rules kaasaan ku dhufan doonaa kaa markaan ku dhufto shaashadna baa soo baxday marka waxaan odhan doonaa next and then waxaan ku dayn doonaa roll and base and then waxaan odhan doonaa next and then markaan next idhaa waxaan odhan doonaa next again the server selection kan baan ku dayn doonaa next aan odhan doonaa and then server role halkan baan dooran doonaa halkan baan dooran doonaa halkan baan dooran doonaa active directory domain service and then waxaan odhan doonaa wuxuu siiyey this and waxaan odhan doonaa add features and then waxaa kaloo dooran doonaa DNS safe aan dooran doonaa and then add baan odhan doonaa continue DNS safe continue marka waxaan odhan doonaa next and then next and then next aan samayn doonaa and then next again DNS safe next and then this is the information key weeyaan marka waxaan odhan doonaa next install baan odhan doonaa marka kan qaybtan baan installan doonaa aan markaan qaybtan installiyo computerkan magac baan waxaan u samayn doonaa magac hadda wuxuu leeyahay magac randomly the computer choose a random name but I will give them this name magac maasna DNS ayaan siin doonaa markuu qaybtan dhammaystiro ayaa markaa kan wuxuu qaadan karaa 1 ilaa 5 minute buu qaadan marka waan iska sugi doonaa waxbana boostin maayo video joojin maayo marka dambe uu restart computer ku sameeyo ayay yar joojin doonaa abaar kaasaa qaato waqti dheer qaato intaan iska dhamaystirno
sidaad arkaysaan waa dhammaystiray. Marka I will close, waxaan odhan doonaa close shaashadan. Hadda waan dhammaystiray, marka waxaan ku dhufan doonaa local save aan ku dhufan. Marka waxaan samayn doonaa magac baan u bixin doonaa computerka, because hadda magacuu leeyahay waa magacan weeyaan. Ka magac markaan u bixinayo waxaan dooran doonaa DC baan dooran doonaa, oo magaca marka kan baa computer ka click baan siin doonaa. Markaan click siin waxaan odhan doonaa change the computer, mar labaan ku celiyo. Halkan baan click siin doonaa, hadda waxaan odhan doonaa change baan odhan doonaa, hadda magacaan bedeli doonaa. Magaca waxaan u bixin doonaa DC1 baan u bixin doonaa. Magacaasaan isticmaalanaa screenka. Kan next aan odhan doonaa. Markaan next tiraahdo screen wuxuu odhan doonaa start. Marka waxaan odhan doonaa okay. And then this, and then close baan odhan doonaa. Change will take effect after you restart the computer. And then restart. Marka this ayaa qaata process oo ilaa 10 to 15 minutes buu qaataa. Marka waxaan samayn doonaa videoha waa inoo joojin doonaa. Markuu dhammaystiro ayaa marka aan recordinta bilaabi doonaa. Kan baa waqti qaata. Qaybtan baa waqti qaata, waan joojin videoha. Waa dhammaystiray hadda. Marka waxaan odhan doonaa click yaan siin doonaa. And then waxaan ku qori doonaa passwordkan ku qori doonaa. Passwordkii aan creatinay. This is the screen. Marka the domainkii aan samaynay magacaas domain baan samayn doonaa hadda. Marka calaamadan yellow part ayaan ku dhufan doonaa. Yellow bay noqon doontaa. Calaamadaasaan ku dhufan sida the domain. Marka waxaan odhan doonaa promote this save as the domain controller. Markaan kaa click idhaa, and then this is waa kii ugu horreeyaan samaynay. Marka isna hore umaanan samayn. Marka waxaan dooran doonaa add new forest. Marka magac baan samaysan doonaa. Marka magaca doontaad u bixin doontaa, laakiin magaca wuxuu noqon doonaa hadhow toole markaan kombiyuutarro kale ku xidhayno. Magacan baan isticmaali doonaa. Magacan hadda waxaan bixin doonaa any magac waad bixin kartaa, oo any business waad bixin kartaa. Hadda magacan waxaan u bixin doonaa aadan baan u bixin, aadan.com baan u bixin. Aadan.com bixi, next aan odhan. Marka wuxuu weydiin doonaa type directory saves password buu igu odhan doonaa. Marka password baan bixin doonaa halkan. Marka passwordka waxa fiican kii aad samaystay maaha. Haddaad doonaysid kii aad hore u samaysataad ku qori kartaa. Marka mar labaadna waad confirminaysaa the passwordka. Okay, marka passwordka ku qori doontaa hadda halkan. Same passwordka ku qor. Markaad passwordka dhamaysid, marka waxaad tiraa next dheh. Marka all this time file installna, this is waxa weeye domain controller option, and then waxaan samayn doonaa DNS option. This is the DNS option. Marka next dheh. And the additional option also next baan odhan doonaa. Okay, wakaas magacii buu qaatay. Waxaan odhan doonaa next. And then the path waxaan odhan doonaa next. This is the path. Marka next dheh. And then this is the summary of what we did. Waxa uu ku installanayo. Marka next dheh. And then markuu qaybtan dhamaystirto waxaan samayn doonaa install baan odhan doonaa. Magacana waa kan arkaysaan. Magaca target saves magacaan isticmaalno waa DC1 oo domain control ah soo gaabinay. Oo this our main buu noqon doonaa. Okay, marka this is the information key.
marka waxaan samayn doonaa you can haddaad doonaysid waad akhrin kartaa sid waxaan la doonaa install baan la doonaa hadda waan installinaynaa handa markuu installation ka dhamaado waxaan samayn doonaa computerka markaa isbaktin doona and then that process waqtiyo cabaar buu qaadan doonaa marka video waan yar joojin doonaa ilaa uu installation ku dhamaado and then markaan ku laaban doonaa okay waxaan oran doonaa close and then computerku restart buu samayn doonaa it will restart by himself to affect marka this restart it might take waqti buu qaadan waxaan samayn doonaa the video waa noo joojin doonaa and then markuu dhammaystirto ayaan dib u bilaabi doonaa saan uga sii qaadno I'll stop the video hadda waa dhamaystiray marka hadda waxaan gali doonaa wixii aan bedelnaa markaa ogaan doonaa waxaan odhan doonaa calaamadda ku dhufo and then you see hadda wuxuu qaatay aadan administrator markii hore wuxuu ahaa administrator ahaa marka aadan waa kii aan creatinay passwordkii baan ku qori doonaa kii aan creatinay okay marka waxaan ku dhufan doonaa local server saan u eegno magaciinu isbedelay waa kaa magacii computerku isbedelay oo ah computer namekeenu waxa weeye dc one and then the domain keenu waa aadan.com markii hore wax kaloo ahaa hadda uu isbedelay marka hadda waxa weeye waxaan samayn this is our the main administrator in the computer and then we will waxaan creating doonaa window 10s and then window test marka waxaan samayn doonaa we will one connecting doonaa to this one marka userna waan creating doonaa marka hadda waxaan soo dari doonaa nextkeena cashar kale ka dambeeya inaan window 10 aan createyo and then isku xidhay labadooda haddii aan la idmo marka halkan baan ku joojin doonaa casharka wixii kale any comment oo ku saabsan casharkan marka hoostaad ku qori doontaan waa ila wadaagi doontaan oo ay yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu